بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay inaan wax yar ka idhaahdo arrimaha dalkeena ka taagan. marka ugu horeysa waxaan hambaliyanayaa guddiyada labada guddiga diiwaangelinta iyo guddida doorashooyinka oo howlahoodii guddiga diiwaangelintuna ay meel fiican ka bilaabeen oo wadaan labaduba. aad iyo aad baan u hambaliyanayaa. culays weyn baa saaran. culayskaasina ilaahay subxaana wa tacaala ha waafajiyo inay noqdaan dad xilkooda ka soo baxa oo xilka ay u dhaarteen, dad tixgeliya oo qaranka mas-uuliyadda ay u hayaan mas-uuliyad aad iyo aad u culus weyn. mas-uuliyadda hoggaanku kusoo baxayo siwaa dadkii mustaqbalka lagu aamini lahaa ay kusoo baxayaan weeye inay culayskeedaasi ilaahay tuso una fududeeyo. halkan waxaa maanta waxaa darata la shaaciyey shalay la shaaciyey natiijadii ururadii 14 ah oo 9 la yidhi wayna jexeen, 5 mayna jexin. ka hadli maayo maxay u najexeen iyo maxay u najexi waayeen, sababtoo ah macluumaad badan baynama siin. laakiin waxaa soo jeedinayaa uun inay guddidu ay had iyo jeer dimuqraadiyaddu waxay ku dhisan tahay qancinta dadka, in la qanciyo dadka. waxna speech ka yar baa lagu soo qormuliyay 9 urur oo najexay. wax sababa oo ururadii najexi waayey iyo kuwa najexay midnaba lama soo qorin. ka waxa wanaagsan in had iyo jeer si dadku u qancaan lasoo bandhigo natiijada siday u qiimeeyeen urur walba qiimahay qiimeeyeen inay dadka usoo bandhigaan baan jecelahay. dadkuna isweydiinayaan tahayna bahash waajib saaran inay tahay. wuxuun bay ku qiimeeyeen oo way hayaan iyagu, laakiin wax ummadda oo dhan waxay xaq u leedahay in loo soo bandhigo sidii loo qiimeeyey. dimuqraadiyaddu waa dadweynaha sidii loo qanciyo. dad baa jira iyagu dimuqraadiyadda waa ku cambaaray oo yidhaahdaa waa nan islaamika maaha, islaamku ma ogola. runtii kelmadda dimuqraadi haddii ta westernka la raacayo dee shareecaddeenu ma ogola. laakiin inagu maxaynu samaynay? waxaynu aasaaskiiba ka dhignay shuruucdeenu oo dhamme inay tahay shuruuc waafaqsan diin alislaam. diinta islaamka shuruuc waafaqsan unbaa dalkeena lagaga dhaqi karaa. marka dimuqraadi aynu qaadanayno kelmadda dimuqraadi intaynu ka qaadanin waxa weeye habka doorashada, inay dadweynuhu ay xushaan ciddii ay madaxda ka dhigan lahaayeen. waxaanaynu ognahay asxaabtii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markay u dhintay in asxaabtu ra'yigooda isweydiinayeen cidda noqonaysa khaliifka, oo iyagoo ay isweydiiyeen intoodii markaa tiradu ka go-aysa ay sidan samaysay. tii oo dhan baanu inaguna ballaadhinay. laakiin waxa weeye shuruucdeena dimuqraadiyadda iyo cid bedeli kartaa ma jirto. shareecat alislaam waa inay waafaqnaa saarataa wax wala oo sharciya oo golaha baarlamaanku ansixinayo oo dowladweynu ku dhaqmaysa. waxaynu ka dhignay inayna tahay wax laga waafaqsan diin alislaam. marka waxaynu meeshan wax ka qaadanay un sidii aynu hoggaan u heli lahayn. wax kaloo aynu qaadanay oo dimuqraadiyad ku salaysan. shuruucdan sidaynu shuruucda diinta islaamka waaweyn sidaynu ugu samayn lahayn shuruuc ku dhaqan leh oo laga soo maaxdo oo ku macaamilo ayuunbaa meesha tan aynu dimuqraadiya habkaynu intaynu ka qaadan waa intaa. laakiin waana wax aad iyo aad ugu naadira xataa dalalka islaamka iyo dalalka carabta iyo dalalkaas oo dhan qaynuun wax saacadaan u qaatay. waxaa jirta somaliland iyo walaalahayn soomaaliya iyaguna sidaa ku qoray dastuurka ay tahayna wax aad iyo aad laynagu dayan doono oo dalalka islaamku qaar badan inagu dayan doonaan. waxa weeye halkaa markaynu ka tagno waxaynu u baahanay haddaba ficil kasta oo go-aan kasta oo dadweynaha taabanaya in dadweynihii loo soo bandhigo oon laga dhigin wax sira. waxdii jeer dadka ay xaq u leeyihiin marka sir ka dhigto shaki baa imanaya, kuteyn badan baa samaysmaysa, warxumatashiil baa imanaya, cadowgaa ka faa'iidaya. laakiin markaad waxay aad go-aanka gaadhay halkaa bad ka soo dhigto wixii wax cad noqdo
cid alla cid maaragtay dilaali karta iyo cid xumaan karta ma jirto. markaa guddidaana waxaan taasaan kula talinayaa. waxaa kalan jecelahay 13 November waa maalin aad iyo aad cajiib ah oo wanaagsan. waa maalin adduunka waxaa laga xusaa maalinta isu naxariisashada, World Kindness Day. markaa maalin fiican baa inaga beegantay inaynu inaguna isu naxariisano, isuna tanaasulno, wax wanaagsan oo farxadina inaga soo baxo, si aynu maalintaa xuskaan adduunka uu isu xusaayo isu naxariisashada aynu uga qayb galno. ha laysu naxariiso, ha laysu tanaasulo, qarankana ha loo naxo. qof waliba qaranka ha u naxo. dagaal cidina ma doonayso, ka doonayaana maaragtay ma helayo. bulshadu waa bulshada nabadgelyo dhamisay, waa bulsho waaciya, waa bulsho nidaam fiican haysata. nidaamkaa habkay ku bedeli lahayd na dariiq ay u marto leh, waana dariiqu ka xidhnay. marka bal maalintaa 13 November ee ay ku beegantay maalintii maxaanku idhaahdaa isu naxariisashada, World Kindness Day-gaana dee anigu isu naxariisano. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.